السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله. daawadayaasha sharafta leh kusoo dhawaada arag damiir. boqorkii Namruud ee isku dayay kadeedida iyo dabkuduuridda Nabi Ibraahim markuu dhalinyaro ahaa ayaa baktiyey. Waxaa Ilaahay u gacan geliyey booskiisa boqor kale oo muslim ah, garsoor iyo sinaan ku caanbaxay. boqorkan ayaa kula cibaadaystay Nabi Ibraahim iyo Nabi Ismaaciil kacbadii ay wada dhiseen. Dulqarnayn ayaa la dhihi jiray boqorkan Ilaahay siiyey qab iyo qiimo, wuxuuna u talinayay dadka ku nool dhulka berigaas. dadka ku nool dunidan waxay ahaayeen carab ku nool jasiiradda Carabta, Qibtiyiin ku nool Masar ee ka mid ah xaaska Nabi Ibraahim Haajar, Turki iyo Ajuuj Maajuuj ee ku noolaa bariga iyo bartamaha Aasiya, kuwa kale ee ku noolaa Shaam iyo Anadol ay markii dambe soo degeen kumanaan sano kadib Turkida. inta hartay dhulka ka mid tahay qaaradda Ameerika, Yurub, Australia, Afrika marka laga reebo Masar iyo inta ku hareeraysan maysan ku nooleen dad. kala duwanaanshada dhulka iyo luqadahan waa sababta Ilaahay uu soo dirayay qoom kasta rasuul la abtirsada oo afgaranayo. kala duwanaanshada luqadda iyo kala fogaanshada dhulka ma tilmaamayso dadka inaysan wada dhalan. Carabta waxay ku abtirsadaan Nabi Ismaaciil, reer Bani Israa'iilna waxay ku abtirsadaan Nabi Isxaaq. labadoodan waxay ahaayeen laba wiil oo Nabi Ibraahim dhalay. dadka qaarna waxay xusaan awoowayaasha Yurubta inay ku abtirsadaan walaalka Nabi Yacquub. sidaas darteed kala duwanaanshada midabka dadka waxay tilmaamaysaa caradii laga abuuray Nabi Aadam ee ma ahaan daanyeer madow ee ku noolaa qaaradda Afrika oo horumaray sidaan ku xusi doonno xilliga Nabi Muuse. shucuubtaasi kala duwan aan soo xusnay ee Ajuuj Maajuuj, Turkida, Carabta, Qibtiyiinta iyo kuwa kale waxay ku hoos noolaayeen xukunka boqorka Dulqarnayn. Dulqarnayn ayaa ku soo wareegi jiray dunida isagoo socdaalkiisuna ahaa faafinta diinta Islaamka iyo maxkamad garsoor degdeg ah. wuxuuna lahaa qorshe diyaarsan meelaha gaarka uu booqanayo oo ka tirsan boqortooyadiisa si uu u xaliyo dhibaatooyinka ka jira iyo diin faafinta. boqorka Dulqarnayn ayaa ka bilaabay socdaalkiisa ay ku weheliyaan ciidankiisa iyo dowladdiisa galbeedka boqortooyadiisa. markay cadceedda sii dhacaysay ayuu wuxuu soo gaaray dad ku ag nool agagaarka ilbiyo dhoobo qulul ee cadceeddana u sii dhacayso dhanka dhoobada. Dulqarnayn ayaa u soo bandhigay dadkan inay qaataan tawxiidka, wuxuuna u sheegay qofkii qaata diinta Islaamka inuu u fududaynayo arrimihiisa uuna u xalinayo dhibaatooyinka ayna u dheer tahay janno maalinta qiyaamo. balse qofkii diido oo gardaro sameeyo xaqa ka leexdo inuu ciqaabayo adduunka ayna u dheer tahay cadaabka aakhiro maalinta qiyaamo. kadibna wuxuu sii aaday goobtiisa labaad sidii uu ahaa qorshihiisa safarka. Dulqarnayn iyo ciidankiisa ayaa waxay soo gaareen bariga boqortooyadiisa markay cadceedu soo bixisay. waxaana soo sheegnay goobtii ugu horeysay oo yimid wuxuu yimid markay cadceedu sii dhacaysay, goobta labaadna wuxuu yimid markay cadceedu soo bixisay. taasina waxay noqon kartaa sababta Ilaahay ayaa oge kala duwanaanshada waqtiyada wadamada. sida hadda markay cadceedu sii dhacayso Masar ayay Malaysia marayaan saq dhexe. si kastaba ha ahaatee markay cadceedu soo bixisay ayaa Dulqarnayn u yimid qoom aanan haysanin waxay kaga gambadaan kuleelka cadceeda. qoomkan waxay ku noolaayeen biyo, cuntadoodan waxay ahayd kalluunka. Ilaahayna wuu ogaa waxa uu haysto Dulqarnayn ee ah ciidan, qalab iyo sahay. Dulqarnayn ayaa sii raacay wadada jeexday sida qorshihiisa safarka ahaaba. wuxuu yimid dhul buuraley ah ee ku nool yihiin qoom ay ku adag tahay inay fahmaan luqadda boqorka Dulqarnayn. waxayna ku hadlayeen sidii cunug luqad barad ah ama qof ajnabi ah ku cusub tahay luqad. isku day dhib badan kadib ayaa Dulqarnayn fahmay cabashada dadkaani. waxaa la sheegaa inay ahaayeen Turki. asalka Turkida ayaa waxaa la sheegaa inay yihiin bariga iyo bartamaha Aasiya. qoomkan iyo Ajuuj Maajuuj ayaa dhibayay dadkaani, waxayna ka afduubanayeen hantida iyo dadka wayna dilayeen. kadibna waxay u cararayeen dhulalkooda buuraleyda ah. Dulqarnayn ayaa ugu dacwoodeen dadkaani dhibaatada ay ku hayaan Ajuuj Maajuuj. qoomkan ayaa ku yiri Dulqarnayn waxaynu ku siinaynaa qarash iyo mishaar ee waxaad noo samaysaa ood na kala dhaxir inaga iyo Ajuuj Maajuuj. boqorkii garsooraha ahaa ee Dulqarnayn ayaa ku yiri waxa Ilaahay ii siiyay ayaa ka wanaagsan ee waa idin samaynayaa abaalmarin la'aan ee waxaa idinka doonayaa qura inaad igu kaalmaysaan awoodiina. deedna wuxuu baray Dulqarnayn sida loo dhalaaliyo birta, waxayna sameeyeen ood weyn oo bir ah. birtii ay sameeyeen ayay ku alxameen buurtii ay degnaayeen Ajuuj Maajuuj. Ajuuj Maajuuj maysan awoodin inay ka soo baxaan xagga sare, mana awoodin inay duleeliyaan birta. sidaas ayaa nabadgelyadii ugu soo laabatay qoomkaani. Ajuuj Maajuuj waxay soo bixi doonaan aakhir zamaanka si ay u dhammaystiraan gardaradooda. balse xilligaas waxaa jooga boqor kale oo caadil ah oo xifdisan kitaabka Tawraat, Injiil iyo Qur'aanka. boqorkaasi dunida xukumi doonaan waa Nabi Ciise. si kastay gardaradu garab u hesho, gacal garsoore ayaa Ilaahay keeno. wa sallallahu wasallam calaa nabiyina Muhammad. assalaamu calaykum.